شيخ شريف أحمد، حسن شيخ محمود، عبد القادر الصبري علي، يا عبد الولي علي قاس. أفرتا مشرح وحنكرت سنة سيئة أمام قدوه إلى غنى إلي أفرتا ورسول فريستان دنع السورية سيئة روح runtii aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ee maanta sida wanaagsan ay bulshada u jirto codkooda u dhiibtay. waxaan rabaa inaan sheego waxaan ugu faraxsanahay inay tani tahay mirihii 14 bilood ee la soo dhaafay xukuumadda badbaadada qaran ay kasoo shaqeynaysay inay meel fiican marayso, inay meel gabagaba marayso, in maanta aan hadda gabagabadii doorashadii madaxweynaha aanu ku jirno. aad baan u faraxsanahay, aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanadii ii coday codkooda i siiyey iyo kuwii aan codkooda i siiyey intaba waa mahadsan yihiin. Soomaaliya meel fiican bay maraysaa. aad waxaan u faraxsanahay 14 bilood inaan ka keenay meesha ay joogtay, aanu keenay meesha hadda ay marayso, haddana u baahan tahay in meesha ay joogto laga sii qaado oo meesha ay istaahisho la geeyo ayaan aad u jeclaan lahaa. waxaan kaloo idiin sheegayaa in anigu wareegga labaad aan ka tanaasulay, aan geli doonin. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay isbedel, waxay u baahan tahay horumar. saas daraadeed waxaan aad u jeclaan lahaa in isbedelka loo hiiliyo, in horumarka loo hiiliyo, in Soomaaliya dariiq cusub ay qaadato ayaan aad u jeclaan lahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والله يا بدومي بحرمة يحل معنا مدحنا شرفت له مرتدى كلام وعن ربما معرفتنا يلعب رمانت فرعية عن حد كلهان إن صومالي مانت أي كل دورنا يسمى مدحوينه دي waddanka gudihiisa markay ka soo wareegtay muddo fara badan 22 sano ilaa 30 sano. runtii waa arrin aad loogu farxo, qof walba Soomaaliya runtii uu dareemo soo noqoshada ay bilaabatay inay soo noqoto qarannimada waddankeeda. waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh inaan uga mahad celiyo doorkooda dastuuriga ah oo ay guteen maanta. waxaan rajaynayaa inay sii wataan doorkooda dastuuriga ah wareegga labaad, anigoo jecel inaan maaragtay meeshaan ka cabiro oo tilmaamo in aan tanaasulay oo aan wareegga kale ka baxay. بسم الله الرحمن الرحيم. wareeggii saddexaad oo xildhibaanada golaha shacbiga ay ku magacaabayeen ku xulanayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay u dhacday sidii soo socota. tirada saxiixiyada ku jira liiska oo xildhibaanada ay saxiixeen waa 269. tirada waraaqaha doorashada ee aan la buuxin waxba everywhere. tirada waraaqaha doorashada ee aan hagaagsanayn ama xumaaday everywhere. tirada waraaqaha doorashada ee hagaagsan 269. tirada codadka la bixiyey 269. wadafta waraaqaha codbixinta ee la helay 271. wadafta waraaqaha doorashada ee xumaaday eber. wadafta waraaqaha doorashada ee aan la isticmaalin 2. isugeyntii waxay noqonaysaa 271. codbixinta la bixiyey waxaa loo codeynaya 2 musharax oo kala ah xasan sheekh maxamuud
iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu helay 79 cod. Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu helay 190. saadaraadee codayntan galabta meesha ka dhacday maqribka meesha ka dhacday waxaa ku guulaystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya xildhibaanada sharafta leh wasiirada ambaasadorada saraakiisha ciidamada bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam kadib farxad weyn ay tahay caawa in magaalada Muqdisho ay doorasho ka dhacdo si xor oo xalaal ah 42 sano kadib. farxad weyn ay tahay xilligii koobnaa saddexda sano iyo barka ahaa in dalku uu soo gaaray gudihiisa inay doorasho ka dhacdo. mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa in ugu hambalweeyo walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya guusha halkan ka gaaray. waxaan rabaa inaan caddeeyo natiijada doorashada inaan u hoggaansanahay xaq ay tahay ku qanacsanahay kuna shaqayn doono. wax ka wanaagsan ma jiraan qofku inuu tartamo haddii uu guulaystana dadka uu hogaamiyo haddii laga guulaystana shacabkiisa uu iska dhex fadhiisto wax ka fiican ma jiraan. waxaan rabaa intaas inaan ku daro haddii aan guulaysto waxaan jeclaan lahaa in laga hamdaleeyo laga shaqeeyo. qofkii guulaystana wuxuu uga firi karaa inaan la shaqeeyo gacan siiyo. waxaan u malaynaa dhowr munaasabadood inaan idinkaga sheegay haddii laga guulaysto inaan la shaqeyn doono dowladda. ballantii waa halkeedii waxla waxaan awood leeyahay waxaan siin doonaa dowladnimada Soomaaliya ilaahay idankiisa talo iyo waxla wixii lagaga baahdan diyaar u aha mana ahaan doona insha Allah taala mid dowladda sanka ka gala oo talada ku khasba. waxaan ahaan doonaa mid suga talada
intaas markii aan ku waxaan rabaa inaan mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood sida ila shaqeeyeen sida gacanta ay siiyeen sidaas oo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo dowladihii kala duwanaa iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ciidamada AMISOM sida ay gacan ii soo siiyeen dhammaan shaqaalaha dowladda waxaan ka baxayaa saaladan ama qolkaan aan badal qabin oo gacan lagu siiya shaqadeydii aaminsan inaan soo gaarsiiyo daalka maanta inuu ka baxo kubeel gaar laguna doorto madaxdii qaranka caasimadda Soomaaliya mudane aad marweyn waxaan maleeyaa munaasabadan kuma haboon hadda gaari laga yiraahdo laakiin waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo halkan waxaa taagan saraakiisha ciidamada waxaa taagan agaasimihii hay'adda nabad sugidda waxaa taagan taliyihii ciidamada xoogga waxaa taagan taliyihii booliska Soomaaliya dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida saacadaas laga bilaabo si uu amnigu uusan u naqan wax la isku hadlayo waxay ka amar qaadan doonaan madaxweynaha hadda la doorto aniga oo xilka rasmiga inuu wareegayo dhaarta kadib laakiin taas waxaan yeelaa inaan fursad loo siinin cid kastoo amniga ku ciyaaraysa isla markaasna waxaan ballan qaadayaa talooyinkaygii ku aadanaa xagga amniga inaan sii wadi doono ilaa madaxweynuhu si buuxda ugala wareego awoodda madaxweynenimada mudane aad marweyn mar kale sharaf ayay tahay Soomaaliya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa mustaqbal ifaaya nabad buuxda horumar midnimo iyo inay gaaraan himilooyinkooda waxaan u maleynayaa inaan iloobay baarlamaanka inuu mahadceliyo sababtana waa iska gara kartid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا نوضع تصالح النقطة دليرة الصومالية إن عن سد ديمقراطية إسلام لماذا تجرت أمانة تجرت عن معمولي كردل كينا تصالح وحينا هذا الذي هدو سودي مدحوين الشيخ شريف أحمد دليرة تصالح إذن نقطة دل كان رجلي سواسوك علي وحوقو عن سدي إن وكبحو حالة الكجرو وكجرو حالة ديمقراطية إسلامية ورمرأة إنه كبح هذا قلبك أنت أفكر كان تقول قلبك استقاشن اللي حاد الدستورك وحكا هذا يا دارين تمدحوينها وحانا دستورك أو واجب كدقيا إن قدوميها محكمة السرع ودارية سادرات وحن ويريا مدن مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية السب مدن حسن الشيخ إنه يمادو نارتين خاص waxaan ku dhaanayaa dhaartii dastuuriga ahayd ee qodobka 96 ee dastuurkeena cusub uu sheegay hadalada waad iga daba odhanaysaa madaxweyne waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka
dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq mudane madaxweyne awguuliyo aku awguuliyeenaya waxa ku bilaabmay xilkii madaxweyne waana xil culus waxaana loo baahayay mudane madaxweyne aad u aqrido qodobada dastuurka ay sheegaya xilka madaxweynaha waa mahadsan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة بدن إيمان دير أو شقاء يا صومري وبدر وقت اللي جينا نقوله لكن حدون يا كان دور قلب مهمة إن كسر جدي أو كاشيغو marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intii idooratay iyo intaan idooraninba dulqaadka ay muujiyeen waqtigii adkaa ee ay socotay doorashada waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda oo si hagaagsan u maamulay ilaa intii la dhisay ilaa la doortay baarlamaanka iyo guddoonkiisa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddigii doorashooyinka ee sida habsamida u daadiyay doorashooyinka ayadoo ay ku dhex shaqaynayeen duruufo aan aad u jirjircanayn oo adag waxaan doonayaa sidoo kale inaan u mahadceliyo beesha caalamka ee Soomaaliya mar walba la garab taagan hiil iyo hooda farsamo iyo midda dhaqaale iyo midda moralka waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale guud ahaan intii ka soo shaqaysay in processka taariikhiga ah ee madaxweynihii hore jamhuuriyadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku tilmaamay inuu yahay process taariikhi ah waxaan qirayaa waxaa maanta halkan ka dhacay taariikhda Soomaaliya inay bogdahaba uga qornaan doonaan waxaan sidoo kale iyo si lamid ah si weyn aad iyo aad u weyn ugu mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed وصاحبكي shalay وصاحبكي maanta wuxuu ahaan doonaa saaxiibkayga berri haddii alla yiraahdo waxaan ku ammaanayaa oo aan ku hambalyaynayaa isbeddelka taariikhiga ah ee intii xukunka uu hayay Soomaaliya ka dhacay waa arrin taariikhda Soomaaliya ay xusi doonto magaciisuna mar walba uu ka muuqan doono taariikhda Soomaaliya inuu nasiib u yeeshay inuu hirgeliyo arrinta maanta dhacday dalka inay ka dhacday xukuumadihii kala duwanaa iyo madaxdii xukuumadahaas ee ayaguna u sabab ka qayb qaadatay arrintaani maanta inay dhacdo waa u mahadcelinayaa dhammaan waxaan u hambalyaynayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad ka timaadeen waddadii dhibka badnayd waddo toosan ayaad haatan cagta saarteen inta ka dhiman sii wada waxaan shacabka Soomaaliyeed aan weydiisanayaa gacantooda hagar la'aaneed si dalkeena dawlad gebigiis ka hana qaada ay uga dhaqan gasho Soomaaliyana ay ku soo noqoto beeshii caalamka oo maanta bilaabatay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa duruufihii dhibka badnaay iyo waayihii dhibka badnaay aan soo marnay inay noqon doonaan beej la rogay oo laga soo tegay haatan uu noo bilowday beej cusub beejkaas cusubna shacabka Soomaaliyeed la'aantiis wax fiican kuma qormayaan sidii kuwii hore kale waxaan rajaynayaa waxa wax ugu fiican ay ku qormaan mar kale waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh